deegaanka xidhxidh oo laascaanood kaga beegan dhanka koonfur galbeed hilaadii 50 kilomitir waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday shir ay isugu yimaadeen siyaasiyiin ka kala socda maamulka khaatimo golayaasha Somaliland, maamulka Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shirkan oo socday maalmo kooban ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka khaatimo Professor Ali Khaliif Galayd, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax. Markii uu soo dhamaaday shirkan waxaa laga soo saaray warmurtiyeed nuxurkiisu uu ahaa sidan: magaalada xidhxidh ee gobolka Sool oo maanta ay taariikhdu tahay 27 bishii labaad 2017 shir ay isugu yimaadeen madax ka kala socota maamulka khaatimo ee golayaasha Somaliland. Shirkaas oo bilow u ah sidii loo mideyn lahaa hoggaanka siyaasadeed ee dadka deegaan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ee ka kala tirsan dowladda Somaliland, khaatimo Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya si meel looga wada abaaro danaha iyo dhibaatooyinka ka jira deegaanka iyo dadka ku nool goboladaasi. Gabagabadii shirku wuxuu u baaqay Somaliland iyo khaatimo inay ka qayb qaataan doorkii kaga aadanaa meelmarinta nabadii labada beelood ee Bahar Same iyo Khayr Cabdi ay ku heshiiyeen. Loogu baaqay xoojinta nabadda iyo ilaalinta xasiloonaanta deegaanka, iyagoo laga codsaday inay tixgeliyaan xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaan goboladan. Ugu dambeyntii shirkan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka khaatimo Professor Ali Khaliif Galayd, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax, xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool, xildhibaan Cawil Cabdullaahi Caydiid, xildhibaan Maxamuud Axmed Yaasiin iyo xildhibaan Maxamed Cali Hayaan iyo wasiirkii hore ee caafimaadka Somaliland Axmed Xasan Cali Casoowe. Ismaaciil Haradige, Somali News TV, Laascaanood.